وقيبتي تبنادي برنامجيدي تحناها أنو كجا هدليني تاريخ الصوماليدا آذن militariga haddaba talada la wareegay bishii Oktoobar sanadkii 1960 mucaaradadii ugu weyneed ee xagga shacbiga ka timaada waxay ka dhalatay xeerkii qoyska oo golihii sare ee kacaanku ay soo saareen bilowgii sanadkii 1975 talaabadaasi waxay keentay in culimadii diintu ay ka hadlaan sida xeerkaasi qoysku uga soo horjeedo diinta islaamka oo ummadda Soomaalida boqolkiiba boqol oran karo way aaminsan yihiin xeerka qoyska oo ka hadlayay sinaanta ragga iyo haweenka marka ay timaado xagga dhaxalka didmadii ay wadaadadu dideen waxa ay tilmaameen in xeerkaasi uu ka soo horjeedo aayadaha quraanka waxa kacaankii dalka haystay ay u dileen taas didmadii ay dideen 10 wadaad 23 kalena waxa lagu xukumay xabsi dheer inta aynan haddaba khudbadii dhibaatadaasi ay ka dhalatay ee ujeediyay Maxamed Siyaad Barre aynan gudagelin afgambigii uu hogaaminayay markii talada ay qabsadeen bishii Oktoobar sanadkii 1969 mowqifkii xagga diinta ma muujiyeen mise may muujin ama halkay ka taagnaayeen maxay ahayd waxaanu qadar imaka dhageystayaal idinka maqashin doonaa Maxamed Siyaad Barre oo ka hadlayay arrimaha xagga diinta khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyo markii talada ay la wareegeen waxa khudbadaasi uu jeediyay 23 bishii Oktoobar sanadkii 1969 waxaana guud ahaan uu kaga hadlayay ciidamada talada qabsaday waxa ay doonayaan inay sameeyaan iyadoo diintuna ay ka mid ahayd waxaanu doonaynaa inaanu marka ka dhigno dalkii dal shaqo ku dhisan inaanu dadkii ka dhigno dad shaqada u hoggaansan oo is iyo dhowrmo nin iyo nin ahaan ay ka dhaxayso hay'ad iyo hay'ad ahaan ay ka dhaxayso caamiladana ay ka qaabsan tahay in laga maarmaaya waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno laalooshka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno qaraabkiilka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaan ku tilaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'ino oo laynaga soo galayay oo ajnabigu markay rabaan inay nahaleeyaan ay ku tiirsan jireen oo sabab ka dhigan jireen adigu qabiilkeed tahay adigu xaggee ku dhalatay adigu muxuu ahaa kaafay tahay hebel ma waxbaa isu tihiin hebel waxbuu kaa sheegaa maxaa sababteed u tahay inuu idinka kormaru rabaa inuu idinka hoosmaru rabaa wixii ay kici jireen nimankii gumaysayaalka ahaa oo haatana masawirkooda beentu nala joogo maskaxdooda iyo caqligooduna meel kale uu ku dhisaasaya inaanu baabi'ino oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan isku kalsoonayn ama aan iimaan ka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba ajnabiga laftiisu ay ka soo geli jireen inaanu awdno oo Soomaali weynna ay barbar ku raacdo kuwa waxaas miskiinka ah taabacsanna aanu geed cidlaa ku xiro dadkuna ay u muuqdaan kuna codeeyno waxaanu doonaynaa dhaqaalaha dalka inuu hore u kaco in shacbiga Soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo qoomiyadiisa inay hore u kacdo waxaanu doonaynaa inaanu dhalinno qoomiyadda la yidhaahdo Soomaali la yidhaahdo midnimo la yidhaahdo wax wada qabsi la yidhaahdo wada noolaan inay dhalato waxaanu doonaynaa inaanu ku beerno dadkanaga inay ceeb tahay xanta iyo afmiishaaraynta iyo beenta iyo sabidaadda iyo jaajuuska iyo waxa qashinka ah oo aakhire iyo adduunba ku foolsan waxaanu doonaynaa diinta islaamka oo aynu haysanno oo la haleeyey oo loo bandhigay nin kastaaba inuu ku xayaaro inaanu xoogga aanu haysanno ku gees istaagno oo diintu ay quwi noqoto bacdana ay tahay gundhigii shacbiga Soomaaliyeed ay tahay hadalkaasi waxa uu ahaa khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyay Maxamed Siyaad Barre haddaba markii golihii sare kacaanku uu soo saaray xeerkii qoyska ee sababtiisa wadaadada lagu laayay bishii January ee sanadkii 1975 waxa Maxamed Siyaad Barre uu jeediyay khudbad uu dadka ugu sheegayay golihii sare kacaanku go'aanka ay qaateen khudbadaasina waxay ahayd waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalida isku xaq yihiin in halka ay isaga xaq yihiin waxa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar kaliya ka tago haaway aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay korigeed leedahay ee wax kale ay ka qaadaynin waxaa jirtay in maxaa la oran jiray rubuc والثلث والخامس والجن ما jirto taas labada qof way isku mid way isku xaq waa simayhiin xuquuqda muxuu mujtamaca ama waalidkooda ay ka dhaxdaana waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda Soomaalida mana kala hooseyso
taasu isla markii waxay fariisinaysaa in muxuu ahaa labada qof oo ragga iyo haweenka ah ee isqabaa inay isku xaq yihiin waajibkiina inuu u siman yahay xaqiina inuu u siman yahay ayay caddaynaysaa. markaas bal hadda aynu taana ku qotomino hore udhiga ummadda loo yaqaano haweenka adduunka dad aynu inagu rukunkii ugu horreyn saas ku xabaalno. waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxdu ay ka hadlaysan tahay inayna soo raacaan oo dadka aadamiga xaqiisa inay simaaneen rag iyo dumarba inay simaan baan ka rajaynaynaa. maxaa waxay addoonnimaa jirtay addoonnimadii jirtay si loo baabaasho addoonnimada waa in la baabaashaabay jirtay. haddaan addoonnimo jiri lahayn addoonnimo kama muuqateen kitaabkeenna kama muuqateen. haddaan hore usoo kaco weliba haweenka iyo ragga sulud iyo rubuc maxaa keenay waa furuda waxa keenay gabdhaha markay dhashaan waa la xabaali jiray. wuxuu ninka badowga ahaa ee waaga xarabkaa jiro ku fakeri jiray muxuu ahaa intay xeeb kuu keenahayd ha dhimato caqligooda iyo rusaasta ku socon jiray. diinta islaamku wuxuu ku dhisnaa inuu xoreeyo ummadda oo u xoreeyo tilaabo ama midkii xoraysmi kara markaasba in tartiib loo xoreeyo. maalin ba ayad la soo dejiyo maalinba tilaabo la qaado ilaa muxuu ahaa saad u garanaysaan qur-aanka aad ka helaysaan 50% wada nasakhan oo ay nasakheen ama baabaasheen ayada kadib ka soo degay markii dadkii fikradiisii iyo garabkiisii siyaasiga ahaa iyo aqoonsigii aadaminimadu oo hore u kacay. waxaan rajaynayaa inay qoladiina hor fadhidaa iyo soomaalida kaleeto iga maqli doontaa baalkan ee microfonka haddaan hor taagnahay ama raadiyo iga maqli doontaa inay wax magaradka cilmiyaraha qur-aanka duleeyaha muxuu ahaa islaamka halleeyaha inay saas u sheegaanin. waa gar in aad ila yaabtaan waa gar maxaa wacay waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin. anna haddaan idinku shubay wallahi anaa idin fiican iyo bilah waa kitaab kaamila wallahi naseexanaa idina waxay idinku shubeen waa beento qaraaba idinlama ahayn beshiina dan kama lahayn wadankiina dan kama lahayn sharafkiina dan kama lahayn ummadnimadiina dan kama lahayn inaad xifataan iyo xoro midna iyagu muraad kama lahayn dantooday wataan waxay ruuxooda weligood inay tooda idinku daafacaan. laakiin diyaar baanu ahay taanada inaan daafacno naftiisagaba naf kala ma kalkaalo markaan anagu teenna hanano ayaynu dadkala waxtari karnaa. marka hadalkaas ujeedaydu waxaa weeye war mukafilnimo waktigeed gudub waxaynu dhignay soomaaliya 75% ama 78 awaad baa maanta wax qori kara. marka masibraar baan weligana ahaanayna roog salad iyo muxuu ahaa gulad bin culeyd oo laba taajira wayba xoolada daafacaya miyaa anagu xaliil u ahaanayna oo beentaa dhigeen baan dhigaynaa oo marka wax alla wixii aynu wax ku qabsan karno oo ama fikradda ama farsamaa miyaa laynaga sixinaya alla ma yeelayna. bas gaajaysan 10 maalmood qabay iyo diinka yaqaan hadday naagtahay dabadii rabanaysa maxaa waxay noloshu waa xaq inay noolaato. taasi waxayd khudbaddii uu jeediyey maxamed siyaad barre sanadkii 1975 markii la soo saaray xeerka qoyska waxaana xeerkaasi lagu beegay sanadkii jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ugu tala gashay inuu noqdo sanadka haweenka. dhegeystayaal imakana waxaanu idin maqashiin doonaa aayadaha qur-aanka ee ka hadlayay dhaxalka xagga qoyska ee wadaadadu ay markaasi ku doodeen in uu madaxweynuhu ka been sheegay. kadib marka aad dhegaystaan aayadaha qur-aankana sheekh maxamed macalin oo ka mid ah wadaadada diinta sida xooggala u yaqaan aadna dadka soomaaliyeed u yaqaaneen ayaa aayadahaasi tafsiirkooda sheegaya. yuusiikum allahu fi awlaadikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله إلهي وإلين دردار ميا في أولادكم في شأن أولادكم أولادين شأن غير إلين دردار ميا إسقى حقول إلين كجعل يعني بني آدم كثير أولاد ألوى بشار هو دردار ميا إلهي هو دردار ميا يعني إلهي سوء خلق يسر يعني أجعل هاي سوء أبروي هاي أولادك بشيء أدو خاص وقعري إياه سيدا قلوا معاملون لهيد بلغو دردار ميا أو لقوا لي سيدا عيسى داسي حديك الأدو لقوا داي وعا سورينا قار قرسي يا دعي كريس كلك إلهي بان أقوله دردارك وامعي للذكر كان لب وحا أسقناري مثل حظ الأنثيين لابد الدك داف تورا أسقناكي لابد الدك انت قارس يوم منك قادنيا هدي ميش ننك أكتغي ويلي لي قبله ويلي كي لبق عمود ولي يدن قعمي ليراي فإن كنا هدي هذا يعني عروسة اللي بتجي نساء هدي هذا ناغها فوق اثنتين لبئي وحكة بدنعه هدي هذا فلهن ناغها سحب لها سوحي إليهم ثلثا ما ترك ميتك وحو كتجي لبريش ثلث بإليهم نينك وحو كتجي واردنتي لبق بدوت وحكة بدن بكتجي وحي إليهم مالك ماكي سدح لو دقل لبق عمود بإليهم وإن كانت هدي أهاته قبل أو كتجي واحدة مثل هدي أهاته نينك وابلنتوه هل قبل بكتجي فلها يدو وحو سقناري النصف نصف إلاري مالك نسكي سيقادنيسا ولأبويه maydka dhintay labadiisa aabo waxa u sugnaaday hooyadii aabihii waxa u sugnaaday likulli waahidin mid la arko oo minhuma labada aaba kamida waxa u sugnaaday as-sudusu meeshii lixaad iyo u sugnaatay minma kii xaqiiba u sugnaatay taraka oo ku tagi nin baa dhintay labadiisa aabo ku tagi aabihii hooyadii ku tagi mid walba aabihii hooyadii mid walba wuxuu leeyahay sudus iyo leeyahay meeshii lixaad waas goorma in kaan haduu ahaaday lahu meydka dhintay waladun haduu walad u yahay nin baa dhintay caruur buu ku tagi ama gabdhaha ahaadeen ama wiilha ahaadeen wuxuu dhalay buu ka tagi aabihii hooyadiina waa ka tagi aabahay hooyada waxay leeyihiin maalka mid walba meel lixaad baa laga siinaa mid walba meel lixaad ayay ku leeyihiin maadaama isaga awlaad uu leeyahay fa in lam yakun hadoonan ahaanin lahu maydkii waladun walad hadoon u ahaanin oo warisahu ay dhaxlaan abawaahu labadiisa aaba keliya ay dhaxlaan faliummii hooyadii waxa u sugnaatay as-sulusu meeshii saddexaad wuu dhintay caruur ma laha aabihii hooyadii buu ka tagi aabihii hooyadii iyo ku tegi hooyadii waxay leedahay meel lixaad iyay leedahay inta kale waxba kuma laha aabbahan aska qaadanaya midna waa nasiib midna waa casab kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed macallin oo sharax ka bixinayay aayadahaasi qur-aanka haddaba cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka oo barnaamijyadan aanu si weyn ugu soo xiganayno ayaan wax ka weydiinay go'aankii xeerka qoyska iyo wixii uu kala kulmay madaxdii waddamadii carbeed markii loo diray inuu ka soo qanciyo go'aankaasi ay qaadatay dowladdii militariga ahayd ugu horraantii waan rabaa inaan kuu sheego horta anigu inaanan goobjoogahayn oo dalkaba joogin markii qaanuunkaa la keenay ama la ogolaaday ama wadaadada la dilay waxaan jiray qaahiro baan jiray waxaan soo saxeexayay waxaa la yidhaha alwuxda aliqtisaadiya alcarabiya ama midaynta dhaqaalaha carbeed wax la yidhaha markii aan ka soo baxayna waxaan ku maqlay arrintan anuu sanca joogo oo yeman sii marayo ayaan ku maqlay markiiba taar baa lay soo diray degdeg usoo galay leeyahay ayadoo lay odhanayo waxaad hogaaminaysaa wafdi oo haddana dalalkii islaamka oo shirku qabo waxaa jiray shirweynaha culamada muslimiinta wax la yidhaha oo markaa laga sheegay baytulmaqdes ayaa waxaa lagu qabanaya baghdad marka muctamar culamaa lmuslimiin waxaa kasoo qeyb galay wasiirada awqaafta ama diinta ra-iisul wasaarayaal qaarkood rag badan oo barlamaan ku jiro maalintaan galay maalin saddexaadkiiba haddana aan soo dhoofay waxaan isku dayay inaan mataqaana adigu ka galgasho oo nidhaa war arrinta tan anigu ma daasici karayo mana qabin horena marar badan baa la isugu dayay in la keeno laakiin waa la diidanaa waanu diidnay arrintaas kuma aanan guulaysan aakhritaankii inaan wafdi hogaamiye ayay noqotay markaan runta kuu sheego wanaag fara badan kalama aanaan kulmin maxaa yeelay shirkii nafsadiisu waa cambaaray horta mataqaanaa soomaaliya anigu kulley meesha hadal baan ka jeediyey laakiin hadalkaaba ma noqon karayo midku difaacayo wuxuuse noqon karayaa mid oo dhexdhexaad aho war adduunka uga sii darinaha
marka waxyaaba la difaaci kara imaanay ahayn madaxyaalka qaarkood anay naba qaabilinba sida Anwar Saadaat Allah u naxariiste ixtiraamahan Cabdullaahi Koogayaa safiir meesha ka ahaa guri la yiraahdo qasr al-Uruba oo laba maalmood ka hor boqor Xuseenkii inta Allah u naxariistay isaguna adduunka wada dhamaaday uu ka baxay boqoradii madaxweyneyalka lagu soo dejiyo ayuu aniga igu dejiyay wabdigiina guriga kale ayaa la geeyay laakiin waradiinu naga qaado ayuu diiday. haddaba dhegaystayaal diidmadu kuma koobnayn madaxweynihii hore ee waddankaasi Masaarda Anwar Saadaat oo qura ee waxaa jiray madax kale oo carabeed oo ka cadhootay xeerkii qoyska ee milatarigii Soomaaliya qabsaday ay soo rogeen iyo dilkii la dilay wadaadadii sheegay in xeerkaasi uu xadgudub ku yahay diinta Islaamka. sida Cusmaan Maxamed Jeelle uu noo sheegay waddan kale oo carabeed ayaa isna boqorkiisa uu diiday inuu la kulmo inkasta oo markii dambe la isku noqday oo lala kulmay. Cusmaan Maxamed Jeelle ha inoo sii faahfaahiyo. habeenkii dib isugu noqdeen waana noo galay soo waxba kala oraa warqadiina intuu qaaday meel iska dhigay sidii waxaan istaahilin la akhriyo ilaa waxay ka hadli sii ogyahay kuma aha boqorkaasu Allah naxariisto boqor Faysal waa markaad dhinac iska dhigto dareenkaasi dalalka muslimka ay qaateen ka sokow inkastoo dii sheegtay aad oganaad goob joog ahayn markii go'aanka la qaadanayay wadaadada lagu dilayo maxaad ku war qaadatay golihii mayay isku wada raaceen mise sidii hanti wadaaga la isku diidanaa saan ku sheegay horaba waa loo diidanaa qaanuunka waxa jiray shir kale oo shirka culimada islaamka aan ku sheegay Baghdad ka dhacay feer socday oo la yiraahdo shirkiga haweenka adduunka oo Mooska ka dhacay marka waxay sheegeen in guddi loo saaray guddigaas oo madax u ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan oo hadda weli joogo markaan warsaday Maxamed Sheekh waalid maxaa say wax u dhaceen wuxuu ii sheegay inay tala ku bixiyeen in loo baahnay qaanuunkan wax muraadahu maanta annaga noo halaabayna jirin wuxuu naga biyo mooyee hatta wuxuu ii sheegay in habla ku jiray shirka oo ka mid ahayd Fatima Ahmed Caalin Ureeyo inay diideen in la yiraahdo aayadihii Ilaahay ayaa haweenka dartood loo bedelay. dib ayaynu ugu soo noqon doonaa arrimaha Soomaaliya hase yeeshee haddii aynu u baydhno dhinaca Jabuuti bishii Noofambar ee sanadkii 1974 ayaa doorashooyin ka dhacay waxa maamulka xoog ku yeeshay mujtamaca Cafarta xisbigii la odhan jiray LPAI ayaa isaguna rasmi ahaan waxa uu noqday xisbiga mucaaradka waxaa jiray jabhad kale oo mitida oo marka magacooda la soo gaabiyo la odhan jiray FLCS oo iyaguna saldhigoodu ahaa magaalada Muqdisho bishii May ee sanadkii 1975 ayaa xisbigaasi dad taageersani waxay afduubeen danjirihii Faransiiska ka joogay magaalada Muqdisho falalkii kale ay ku kaceen waxa ka mid ahaa bishii February ee sanadkii 1976 ayaa waxay afduubeen gaari basa oo siday caruur ay dhaleen ciidamadii militariga ahaa ee Faransiiska ka fadhiyay Jabuuti waxaana ay ku xidheen siideynta caruurtaasi in shuruud la'aan xorriyad lagu siiyo Jabuuti hase yeeshee waxba kamay suuroobin waayo ciidamada Faransiiska ayaa weerar ay ku qaadeen waxa ay ku soo furteen caruurtaasi iyadoo dadna ay ku dhinteen. haddaba bishii December sanadkii 1975 ayaa kadib markii uu kulan dhex maray Cali Caarif Burhaan oo madax ka ahaa Jabuuti iyo madaxweynihii Faransiiska ee waqtigaasi Gaskard waxa la isla gartay in Jabuuti ay xornimo qaadato Faransiiskuna uu saldhigood halkaasi ay ku sii lahaadaan xagga militariga. bishii March ee sanadkii 1977 ayaa wada hadallo lagaga hadlayo xornimada Jabuuti ay ka dhaceen magaalada Paris. bishii June 27keedina Jabuuti waxa ay qaadatay xornimadeedii waxaana madaxweyne ka noqday Xasan Guuleed Abtidoon ra'iisul wasaarena waxa ka noqday Cabdalla Maxamed Kaamil. waqtigaasi ayaa jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay noqotay wadankii 49aad oo ka mid noqday ururka midnimada Afrika iyo wadankii 22aad ee ururka Jaamacadda Carabta. barnaamijkuna maanta dhegeystayaal halkaa ha inoogu joogo.